niyad jabka dumarka ku dhaca maxaa calaamada lagu garanayaa maxaa u nuguleynaya iyo waxyaabaha la midka ah markaynu ka hadlayno xanuunka loo yaqaan niyad jabka ama murugada loo yaqaano calaamado dhowr ah qofka la doonayo in lagu tixgeliyo marka koowaad qofka waxa la rabaa calaamadahan inay hayeen ugu yaraan 2 usbuuc calaamadahaas waa 7 calaamadood ba ugu weyn 2 kamidi waa ra'iisi shanna waynu dooran doonaa dadku ugu kala duwanaanayaan laakiin 2 calaamadood ugu horeeya waa 2 calaamadood oo madaxa ra'iisi waa maxay waa muhiim weeyaan yani iyaga muhiimad gaar ah leh shanta calaamadood soo harayna gaar bayna noqon doonaa okay calaamada ugu horeysa waa qofka inuu dareemo niyad xumo waqtiga intiisa ugu badan qofkan wuxuu dareemayaa niyad xumo inuu maran yahay inuu isku ooyo inaan waxba qabsan kareynin niyad jab badan buu dareemayaa waa calaamada koowaad marka calaamadaas siyaabo kala duwan dadka uga muuqanaya dumarka kale calaamadaas sida uga muuqanaysa maxay waa oohinta faraha badan leh mar walba ay ooyisay dareemayso inaanay waxba aanay qabsan kareynin oo iska fadhido oo ay maran tahay oo kale qofku marna wuxuu dareemaa inuu empty yahay waxba aanay ku dhex jirin wax macna aanu sameeyeen marna waxa uu dareemaa inuu buuxo macna sameeynayo Soomaa marka qofkan wuxuu dareemayaa inuu maran yahay waxba aanu qabsan karin oo hinna uu leeyalanaya waa calaamada koowaad marka la soo ururiyo calaamadaas maxay ku soo ururaysaa niyad xumo calaamada labaad waa xiisa la'aan wuxuu qofkan xiiseynaya ma jirto waxyaabihii berigii hore uu xiiseyn jiray markii uu dhalinyarada ahaa imka ma xiiseynayo ama dhalinyarada hayaan oran waxyaabihii uu xiiseyn jiray markuu caafimaadka qabay imka ma xiiseynayo banaanka loo baxo asxaabta loo tago sawir meelaha lagu galo koob shaaho meelaha laga cabo cunto gaar oo la sameesto iyo waxyaabaha la midka ma farxad galnay 2 calaamadood ugu yaraan qofka niyad jabka leh mid kamid ah buu leeyahay ama labadaba uu yeelanaya inta maxaa u raacaya isbedel qofka ku yimaada ama teedkiisa ama miisaankiisa dadka qaybo kamid ah cuntada aad bay u cunaan wax fara badan buu cunaya dadka qaar koodna ama teedku uu ka xiran yahay waxa ma cunayo dadka qaar kood waxaan ama teedkaygu waa iska caadi laakiin anigoon cunto fara badan ba cunin ba miisaani korayba kibigaygu miisaan baa la saaray ama wuxuu leeyahay iyadoo ama teedkaygu fiican yahay ba miisaankaygu gurmayaaba oo dadku waxay leeyahay waa macaan baa kugu dhacay hoos baa la soo eegayaaba mise dhaayad iyo jiin baad yara gashay baa lagu leeyahay xoog ma gelin sideedii ma iska laakiin waa sii gurmayaa 52 kiilo 51 49 dhulkan ku sii socdaaba waa calaamad saddexaad Soomaa calaamada afraad waa isbedel hurdada ku yimaada laba mid buu markaa noqonaya sidii ama teedka oo kale inay hurdadu qofka ku farabadato yeena ku yaraato habeenkii ma seexanayo waqtiga intiisa ugu badan hurdada uu raadinaya wax yar markuu sida hurdada way helana waxa laga yaabaa 2-3 habeenimo inay ka dhamaatay hurdadu maxaa taa ka soo horjeeda hurdo badani caawa 8 seexanaysa berito 8 subaxna wax lagu toosinayaa dirqi ciyaalka hadii iskuulka u dirayso way soo kacaysa ciyaalkii baska saaraysa dib bay hurdada ugu noqonaysa 12 doorweeda bariiska karin baa loo imanaya halka ma dila faanteen marka 2 calaamadood baa noqotay in hurdadu yaraatay iyo ina farabaato waa calaamada afraad weey calaamada shanaad waa kacsanaan ama dansanaan labadaas isku soo horjeeda qofku inuu noqdo qof kacsan oo wax kasta oo hareerihiisa ka dhacaya ay dhibayaan sanqadha yar baa dhibaysa ilmaha yar meelaha boodboodaya dhibaya wax kasta oo dhibaya uu kacsan yahay qofkani ama inuu noqdo qof iska aamusan ba hareeraha asaas uu eegayo ya hadalka ka soo baxay xitaa ma hadli karaayo erayadu ka soo bixi maayaan marba eray uu soo saaraya tamar badan ma hayo halka wadi la faanteen Soomaa way waa calaamada shanaataas calaamada lixaad waa maxay waa daal iyo tamar darro far ma qaadi kara qofkaas sariirta inaan iska aalaaban doonaya way kulaada ma kici karaayo xuma qabsan karo guri ma xaari karayo iska daaya naftayda ma daryeeli karayo calaamada lixaad way la faanteen Soomaa waayahay calaamada toddobaad waa maxay waa qofkan inuu dareemo dambi waxbuu isku ciil kaambinaya waxa ma isaga la xiriira ha noqdaan ama waxaan la xiriirin ba ha noqdaan waxyaabo la xiriira shaqooyinka uu qabanayay matalan caruurteedii ma daryeelin oo kale ama maxaan ku dhahdaa waxyaabo la xiriira waalidnimada
ama wax uu cid kale u qaban lahaa aabahay sababta uu dhintay aniga lahaa haddaan dhakhtar geel lahaa haddaan waxaan sameyn lahaa haddaan carruurteeda sidan u sameyn lahaa yani waxbuu qofkani dambi iska saaraya waxyaabahaas intooda ugu badan waxaan xaqiiqo ahayn calaamadda sideedaad waa qofku inuu concentrationkiisu u lumo concentrationka waxa weeye tarkiiska inuu shay fiirada saaro ma awoodi karaayo waxuma qaban karaayo haddaad ku taada shan lagu dhiftay waa 25 shan lagu dhiftay sheeg inuu fahmo waad kaansa maxaa tii shanta saan dhahaa shan ku dhifaa baluk haadi mid baa ka qeynay balaama shanta baa balku soo celiya tarkiiski baa lumaya haddii mawduuc la daarana 10 daqiiqo ama 10 daqiiqo ugu horeeyo qofku la soconaya inta dambana uu ka baxayaaba wax laga hadlayo ma ogo maskaxdiisu iyada isla sheekaysanaysa qodobka sagaalaad ugu dambeeya waa inuu qofkan yeesho sideedaad baan leeyahay fikrada ah isdil baa ku soo dhacaya inaad iska dhiman lahayd haddaad isdisho ka waran adduunkana aad isdhaafiso waayo waxa uu sababtu taa u dareemayana maxay waa rajo la'aan baa jirta qofkan waxa weeye rajo la'aan buu uu rajo dhigay niyad xumo fara badan buu dareemayaa ka bacdi wax soonay maanta ma distishidba ma iska dhimatidba ma adduunka iskaga tagtid iyo waxyaalo lamid ah okay xanuunka loo yaqaan niyad jabku waxa laazim ah qofka inuu noloshiisa faragelin ku sameeyo meel uu noloshiisa kamid uu saameyn ku yeelanaya ama bulshada dhexgalkeedii uu saameyn kaga yeelani ama shaqadiisa uu saameyn kaga yeelani ama doorkii uu qoyska ku lahaa ma qabsan karaayo waxa ma soo gudbin karaayo waxbarashadiisa ma wadi karaayo inta ugu badan dadka xanuunka niyad jabkana ila wax xanuun naafo loo noqday waxbarashadii meel dhex kaga haraya semester 2 iyo 3 iyo 4 iyo ama wax koonay anigoo buuga difaacan lahaa markaas adeena ugu dambeysayba dibda ma soo ma aragba inta ma dila faanteen xanuunkan hadaba maxaa dumarka u gaar yeelay ama maxaa ku badiyay sababo badan wayna arki doonaa dumarka ugu badan ee xanuunka niyad jabka la nooli calaamadaha aan sheegnay maba sheegaanba calaamado kale ku sheegaysa marka hooyadu soo garaacdo maxay ku leedahay jir xanuun baa leeyahay daal fara badan man dareemaya calooshu way taagan tahay bawasiir baa leeyahay dhabar xanuun baa jira kala goyska ma aragtay intaas oo dhan neerfayaal baa igu kacsan sababtana wax kale ma aha calaamadahana waxay muujinayaan calaamado somatic compliance ah calaamado jirka ka muuqanaya marka inta ugu badan waxay leeyihiin calool istaag bay leeyihiin ama caloosha soconaysa labada calaamad inta badan way iska soo horjeedaan ama calooshu way taagan tahay ama way soconaysaa marka aad doonayso hooyadaasi inay leedahay xanuunka niyad jabka iyo in kale maxaad ku garanaysaa su'aalaad weydiinaysaa su'aalaha in soo sheegnay calaamadaha hore aad weydiini markay ku tiraadmaya jir xanuun baan leeyahay jirka laga hayaa qoorta xanuunsan dhabarka xanuunaya kan kale xanuunaya bal calaamado kale raadi hurdadaad ka wareysanaysaa ha wallahi hurdadeedu way xun tahay niyad jab baan dareemaya mar walba waa iska ooya waxuma qabsan karaayo waan daalanahay markii waxa ku cadaanaysa xanuunka hooyadan hayaa muxuu yahay niyad jab weeyaa inta ugu badan xilliyo kala duwan bay hooyooyinku niyad jabka dareemaan ama dumarku dareemaan xilliga hormoonadu ay isbedelayaan dumarka qaarkood baa waxay xanuunkan dareemaan niyad jabka oo kaliya marka xilliga caadada labada maalmood ee caadada ka horeeya usbuuc ay caadada leedahay iyo labada maalmood ee ka dambeeya qaarkoodna maalmaha caadada oo kaliya wax kale ma aha waa hormoonadu intay isbedelayaan hooyooyin badan waxay yeeshaan intay uurka leeyihiin markay umulaan ka bacdi waa intay hormoonadu isbedelayaan Soomaa oo kaas